أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله وأن السلام يا ملك استقوط عالم كجوكتين إن شاء الله تعالى. سود هذا وحي الله هي جمعة مبارك، كل عام وأنتم بخير، كل أسبوع وأنتم إلى الله أقرب. maanta waa maalin jumco ah. Dadka maalintii jumcihii way u dhammaatay oo habeenkii sabtida u bilaabmay. Annaga salaadii jumco waa laga soo baxay, galab jumco ayaan ku jirnaa, casar baa maaragtay hadda la tukaday. Dadka qaarkood Maraykanka iyo Canada inay hadda duhurkii salaadii jumcada u kacayaan bay u badan tahay. Australia waa naga sii horeysaa. Waxaa dhici karta inay haddaba maaragtay cishiya waxa dhanba inay fuuqsadeen oo salaadii subax iyagu inay hadda maalintii sabtida inay iyagu tukanayaan baaba dhici kartaba. Soo dhawaada. aad iyo aad baan idinku mahadinayaa. Jazaakum allahu khayran. waa aniga iyo macallimad Hibo. sidaan iclaanka idiin soo sheegay insha allahu tacaala caawa waqti badan ma ku jiri doono biidni illaahi alkariim. waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhowr qodob oo aan isleeyahay runtii ma looga baxsan karaa, ma laga ilaalin karaa, ma la iska jiri karaa, ma lagu baraarugi karaa in ay qoyska iyo guriga ay dhib u keeni karto. marka waxaan hambalyo u dirayaa lamaane kaste oo isqaba, oo wada jooga, oo xaas ah, caalamka meeshay doonaan ha kaga noolaadaan: Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Afrikada kale, khaliijka iyo qurbaha. yacni inta qarankii joogta iyo inta qurbaha joogtaba aad baan idin hambalyeynaya insha allahu tacaala. inta iyagu raba in ay yegleelaan qoys, in ay dhisaan hadeertaan, in ay u socdaan dhinaca maxaanku idhahday guri dhis, in guri la sameeyo, in nolol la sameeyana ayagana ilaahay baan u baryayaa subxaanahu watacaala inuu u sahlo oo uu kelinimada ka saaro. maxaa yeelay single markaa tahay Hibo, keli baa tahay. keli markaa tahayna miskiin baa tahay. sababtaa saas u leeyahay waxa weeyaan yacna adigu markaad hal tahay wax badan baa kaa maqan. walidaalika waxaan dareemi karnaa nabiga calayhi salaatu wassalaam marka uu leeyahay man tazawaja faqad kamala nisfa diin. waxaa weeye qeyb dhan oo noloshiisa abuu qofkaasi buuxiyey. marka uu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka maqan qofkii kamili lahaa baa ka maqan. hadday gabar tahayna ninkii kamili lahaaye buuxin lahaaye ayaa ka maqan. haddii uu nin yahay ama wiil yahayna gabadhii buuxin lahayd ee kamili lahayd ayaa ka maqan. ogow, labadu waxay isku helaan wax aynan haysan. markiiba waxa isbedelay Hibo, statuska qofka isbedela. u fiirsaya waxa isbedelaya. shalay wuxuu ahaa, waxaa lagu leeyahay maaragtay single ama maxaa la yidhahdaa doob miyay ahayd ama taas oo kale. laakiin maanta markuu guursado waxaa la leeyahay waa nin reer leh, waa nin xaas ah, waa gabadh xaas ah oo reer leh oo nin leh. marka waxaa isbedelay, magacii wuu isbedelay. xataa waxyaabo badan oo kale ayuu qofku uu helayaa. waxaan leeyahay markaa soo dhawaada. aad baan idiin jecel lahay. ila soo dhaweeya macallimad Hibo Cumar, khayr laha siiyo. Hibo kusoo dhawow, jazaak allahu khayran. maxaad is leedahay caawa walaalaha ayaa la wadaagaynaa? الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بان ugu mahadnaqaynaa ugu horeyn in maaragtay islaamnimada Ilaahay waaga noogu barnayo oo aan ku galabaysanayno. in yaan Ilaahay uga mahadnaqaynaa iyo nimcadihiisa oo idil oo la soo koobi karin. in shukriga iyo xamdiga Ilaahay markaan ka soo tagno insha Allah waxa weeyaan walaalaha na dhageysanaya ee toos noola socdaan mahadinayaa. khayr Allah na siiyo. barnaamijkan waxa weeyaan qoyska iyo horumarkiisa.
labadan qof haddii wax la barin oo wax loo sheegin oo laysku hayn oo faamiliga iyo asxaabta iyo qaraabada iyo cid walba sheekha iyo shariifba aynan guurka laga hadal waxay noqonaysaa in uu dayacmo guurka inuu dayacmo ayay noqonaysaa marka waxaan insha allah ku guda jirnaa ka hadalkii guurka iyo sidaan horumarin lahayn iyo maxaa cadowka oo aan ka ilaalinaa maanta insha allah waan dadejinaynaa waqti badan ma haysano maad aragtay aniga meel kale ballan ku leh marka nuso saac haddii aan kusoo koobi karno axmedow way fiicnaan lahayd biidnillahi alkariim aad baanan uga xumahay marka horey baan u galaynaa barnaamijka oo ah maanta ku saabsan maxaa cadow ku ah labadan qof dabacyadee cadow ku ah dhaqanadee cadow ku ah oo maad aragtay keensanaya inay isku dhacaan isku dhacaasina uu keeno in maxabadii iyo isfahankii uu hoos u dhaco insha allah khayr allah kusii hibo waxaan marka walaalaha la wadaagi lahaa waan dhehi lahaa maya la wadaagi lahaa ma waxaan weydiin lahaa maxaad isleedihiin cadow ayuu ku yahay guriga wuu burburin karaa haddaana laga foojignaanin bal soo qora insha allahu tacaala nala soo wadaaga maxaad is leedahay marka dabcan inta badan waxaa la sheegaa shaydaan baa guriga burburiyaa la dhahaa waxaan ka hadlaynaa waa dabacyada dhaqankan ka hadlaynaa qofku waxa uu sameeyo iyo dabacyada uu sameeyo maaha banaanka wax uga imaanay kama hadlayno labada qof waxay action ay qaadaan amba hadal ay ku hadlaan oo burburin kara reeraha ayaan ka hadlaynaa marka idinkuna nagala qayb qaata oo maaragtay cilmigu dhexdeenu yaalaa in aan bal kala faa'iidaysano soo qora waxaad isleedihiin uu burburin karaa amba dhibaato uu keeni karaa marka axmed hore haan usii galno qodobada maanta kooban laakiinse runtii aada u culus oo keensanaya dadku inay maaragtay haddii ay la yimaadaan oo reerkoogu maaragtay dhibaata ay u timaado nacam walaalahan ka codsanayay in ay soo qorayaan nala soo wadaagaan waxay u arkayaan in kalsooni daro okay shakiga waswaaska okay maxaa kale khayr lahaysi way badan tahay dabcan liisku aad buu dheer yahay waxaan ognahay hiba marka u horeysaba in la isjecel yahay la isku faraxsan yahay in ay dhacdo in la isa soo dhaweeyo in la isku dulqaato in indhaha aanan isha aynan ku dhicin qaladaadka qofka kale laakiin marka muddo la isla joogo ama sanad iyo badh ama 2 ama 9 ama 10 hibo waxa soo baxa hadhowto waxa soo baxa runtii qofka intii yaray marmar waxa kuu muuqanaysa sharbaadka meesha ku tuuro maalin kasta sharbaadkaaga maalin kaa daba guray de meesheedii dhikabihii sidaas la eg dee gurigii ila waa shirkadan gurigii waa company dhan oo u baahan in laga wada shaqeeyo waxaan rabaa marka inaan la wadaago runtii arrinta qoysku shaqo joogta ay u baahan tahay inay iyaguna iska shaqeeyaan gurigana ka shaqeeyaan marka hibo dadka already wax badan bay soo qoreen khayr allahna siiyo waxaa iga qosliyey qof soo qorayay naagta hurdada badan naagta lacagta jecel waxaas soo qoraya qofkaasi kolley baynu miihaa u maleeyaa maxay hayday beenta sida lasoo qoray isfiirsashada waxaa soo qorteen marka qodobada maanta noogu jira hal baan ilaa aanka ka arkaya oo ah dictatornimada iyo in awood la isku sheegto taas qodobadeynay ku jirtaa insha allah hinaasaha la soo qoray xushmad la-aanta maasha allah ixtiraamxumada sax weyn tanaasul la-aanta qof baa soo qorayay waa kaa 2 qof aan bislayn sax weeya oo guurkii diyaar u hayn maasha allah ya okay isku sabar la-aanta waxaas uun maanta ka dhan lagama baxayaba halkanayba noo wada taallaa wixii oo dhan hinaasaha waa run hinaasaha waa dhici kartaa marka qodobka ugu horeeya in anaku soo qoranay waxaan ka dhignay maaragtay isfahan la-aanta waa run qof baa soo qoray uu fiican yahay laakiin waxaan ka dhiganay labada qof markay wax isweydiinayaan ya waxa weeyaan qofku waxaa dhici karta in uu shaygii hore uu qofka ka weydiiso waxbuu weydiisanayaa qofkii in loo qabto dan buu uga baahan yahay laakiin qaabka ugu weydiisanaya ayaa khaldan marka isagaa iska fikiraya intuuna ka fikirin qofkan awoodiisa iyo tabartiisa iyo waqtigiisa marka waxay noqonaysaa in aan hawl ku weydiisto waxaas baan rabaa inay samaysin laakiin qaabka aan ku weydiinayo wuu khaldan yahay sax weya
waxaan rabaa marka in aan laba qaybood inaan isku qabto walaalaha khayr lahayn siiyo haddii aad dib u raaci kartiin waxaa jirtay clip yar oo hadda hor layga duubay oo aan kaga hadlayay 5 qodob 5 qodob weliba waxaan kusoo koobay yacni buug uu qoray baa jirtay nin wadaad ah christian ah laakiin markaad akhrido waxa uu qoray ay tahay wax sunnadeenu iyo diinteenu iyo kitaabka qur-aanka ilaahay noo soo dejiyey subxaanahu watacaala ka buuxda marka runtii 5 qodob ee ku jirta waxaa ka mid ahayd in wax la isku qabto service baahi baa la isugu yimid qofba qofka kale wuxuu u buuxinayaa wixii uu ayna haysanin waxyaabaan u baahannahay runtii inaan isdul taagno haddii qurbaha la yimid haddii dhulka la joogo waxaa ka mid a sidee loo wada dhaqmaa intee in la eg baa la isku baahan yahay ninka maxaa laga rabaa gabadhana maxaa laga rabaa arrintaas waa arrin runtii aad waxyaabahan raba in aan idinku baraarujiyo waxaa ka mid a imtixaankiibka mararka la galaya imisaa la isku diyaariya runtii wax badan baa la isku diyaariya yacni hadday GCSE tahay ama baag hadday tahay ama maxaan ku idhahdaye imtixaan jaamacadeed hadday tahay whatever imtixaan xataa liisanka baabuurka sida loo wado hadday tahay waxaa loo galaa training iyo diyaarin laakiin guurka maalin hore hiba waxayna weydiisay runtii arrin cajiib ahaydoo rabadaanka iyo guurka iskugu kexindhi marka niyadda ilaahay dartii inaan u guursado inaan hameenkaa markaa daawanaya hibo wuxuu ila soo wadaagay wuxuu yidhi khayr la siiyo markaan casharkii nii daawaday ayaan socday buu yidhi suuqa markaan tegay oo dee meelihii la isugu imanayay dhalinyaradu ku kulmayeen ayaan waxaa weydiiyo yidhi dhegaystayaa dhowr nin baan meesha isugu iman yidhi intuba waa xaaslay la socda waxaan ku idhu yidhi war heerdhaniyow su-aal baan ku weydiiyey yaa dar ilaahay u guursaday niyaddii yacna ila markaad soomayso adiga odhanay niyad baan ku soomaya sooma yaa ilaahay dartii u guursaday oo maanta gabadha uu qabo raba janno inuu ku galo gabadhana saa u weyde inay gabdhaha isweydiiyaan ay dhahaan ilaahay dartii ma u guursatay oo ninkan ku qaba ilaahay ma ugu dhowaanaysaa ixsaanka iyo waxa u falaysa marka dhibka ugu horeeya waa maxay ee isku dhaca keena waxaa ka mid ah selfish demand inaad keligaas ka fikirto aniga uun waxaa uguba daranba qaarkood markay keli yihiin iyagana keli lasoo koriyo ee keligii wax la siinay ilmaha la yidhaahdo maxaan ku idhahday waa gaatee ama maxaan ku idhahda spoil child ilmahaasi dee wuu weynaaday sooma hadduu gabar yahay hadduu wiil yahayba sooma keligiibu rabaa social skillskii baa ka maqan wuxuu rabaa keligii wax la sameeyo in wax la siiyo in wax loo qabto haddii isaga wax la weydiiso ama iyada wax la weydiistana dhib bay ku tahay hadalkaaga ayaan ku qabsanayaaye dadka maaragtay lasoo baray inay ummadda u khidmeeyaan inay voluntary work badan soo sameeyeen way waxa weeyaan iyagu horta iskama fikiraan dadka ay ka fikiraan oo maaragtay mujtamaca ay u shaqaynayaan bay ka fikiraan in qofka maaragtay macalinka ah waxyaalo caynkaas inkastoo dabacu qofku u dhashay qayb weyn ay ka qaadanayso marka mawduucan waxa weeyaan in aad adigu iska fikirtid guurka dhexdiisa danta aad ku qabtid qofkan inaad ku danaysatid laakiin afka kama sheegaysid ee ficilkaaga ayaa sheegaya marka caaqibaday leedahay dhibaataday keensanaysaa waxay keensanaysaa in uu qofku isagu ikhtiyaarkiisa uu kugu daryeelin adiga ayaa qasbanaya ma garatay adiga ayaa markastaba baahidii sheeganaya waxaan baan u baahnay saan baan u baahnay waxaan laga qabto waxaan laga sameeyo waxaan kale kan kale maxaa loo qaban waay waxaas baa qofkii ka badanaya marka maxaa qofkii ku yaraanaya ikhtiyaarkii inuu isagu tallaabo qaado uu kaa fikiro uu is yiraahdo alla ilaahay waxaan yar u qari waxaan yar u samee waxaan yar maaragtay ula soo degdeg waxaan yar maaragtay u diyaari inuu qofku is yiraahdo ayaa ku yaraanaysa lianna adigiiba cadaadis ku haya oo mar walba wax weydiinaya marka inuu qofku ku daryeelo ayaa ku yaraanaysa walaal marka in the future oo for the long run insha Allah dhibaato ayay keensanaysaa marka waxaa dhici karta welibana dhaqanka Soomaaligu waxa weeyaan in gabadhu ninkeega ay adeecdo gabadhu ninkeega wax u samayso gabadhu sidan baa la yiraahdaa moogta laakiin ninka way yar tahay in la yiraahdo qaabkeed wax weydiisan qaabkee ayaad maaragtay ula hadli taas ayaa muhiim ah qofkan waa inaad geysid heer
uu maaragtay kugu kalsoonaado waxa aad weydiisanaysa iyo khidmadda iyo hawsha iyo danta aad ka leedahay in uu maaragtay isaguna kuu qaban doono berri markaad weydiisatid inuu kaa dhex arko weeyaan inaad ixtiraam iska hormarisid ayaa la rabaa oo qofka aad ixtiraamaysid waxaad leedahay 10 jeer uu ninkaagii yahay 10 jeer uu gabadhaadii ay xaaskaagii ay tahay ma awoodaabaa meesha taalla ma awoodaa oo maad aragtay maxay hayday ma samayn kartaa sidee kuula muuqataa waqti ma helaysaa aad hawsha igu qabatid in fursadaada ka waran ma kuu fududay waxaan inaad qabatid waxaasoo kale in lagu yar daro ixtiraamka ayay ka mid tahay laakiin amaruun iska bixiyo oo dhaqaaji waa laga fiican yahay waxaad moodaa in ay mararka qaarkood masalan marka laisla joogo muddo 10 sano lasoo gaadho waxaad moodaa isweydiisiga ama hadalkaa macaanee naxariista ku jirto ama garashaduba waxaad moodaa in ay mararka qaarkood ay yaraato oo dadku ay gaadhaan darajo ah qofkani waxba waxaan kuu qaban maaye kuuba samayn maaye walaal baa soo qoray khayr laha siiyo kuwa keligood un la dhalay keliya maaha waxaa ka mid a iyagana kuwa maaragtay guro dambayska la yidhahdo yaraanka iyo maaragtay coradka dabcan waa muhiim inoo fiirsada wiilasha iyo gabdhaha guursanaya qofka aad guursanaysa faamiliga lambarka uu ka yahay ma curad baa ma curud ku xigaa ma yaraan baa oo asagaa reerka ugu yaraa faamiliga uu ka dhashay ma hanti bay leeyihiin ma beeraleyba ma maaragtay faamiliga uu qofkani ka soo baxayo waa inaad aada u ogaato marka okay waa ku soconaya qodobka u horeysa wuxuu ahaa selfi damaad selfi damaadka intaanaan ka bixin jawharo wuxuu keenaa uu qofka u jiidaa amba maaragtay u horseedaa inuu qofku u dhow toolo qof dictator u noqdo qof control badan oo maaragtay qofkii mar walba inuu ogaado noloshiisii oo dhan inuu ogaado isku dayaya inuu maaragtay inuu ku dambeeyo marka haddii wax weydiisigaaga aad xaaskaaga amba maaragtay ninkaaga aad weydiisanaysid iyo danta aad ka leedahay si naxariis leh iyo ixtiraam leh haddii aanad baran oo ahamiyadda un adigu isa siisid guurkan baad soo dhistay waad ku soo tacabtay waxaanaad samaysay runtii waxa weeyaan raggaanu yar badanayna haddii aan u sheegno dabacyada waa la kala leeyahay marka inay raggu tan u yar badan yihiin ayay u badan tahay inkastoo dumarkuba ay maaragtay ay sheega wax rabaan waxaan baan rabnaa waxaan rabaa odhan karaan ma garatay dal badan yacni marka wuxuu qofku ku jiidaysaa amba waxay geenaysaa in uu controlkiisu bato labada qof ee isqabta mid baa dominant la yidhahdaa mid baa ka burud sarreeya mar walba qofka kale marka kii ka burud sarreeyey waxaa la rabaa inuu muujiyo naxariis iyo kalgacayl iyo siduu jecel yahay isaga in loola dhaqmo inuu qofka kale ula dhaqmo biidnillahi alkariim haddii kale waxay noqonaysaa in dictator aad isku bedeshid in qofkii ciriir aad gelisid in marka dambe maaragtay isku dhaco uu yimaado oo qofkii kalsoonida ay ka dhunto ilaahay khayr ku siiyo qodobka labaad baan gudbay موضوعني أد بأبهين هاي ما نقوم علينا هافنا ورينا ما نكر مرينا قلب كحية وقلب كأن لحريرة وأن كفوجين كنتي صح وحالي ده يسجنا سي احترام درعة إن أبقفك أحكمت disrespectful judgment أديك أنا قفك قيميني إن الحكمت أو mentality أما mindset كاو إن هذا عقلية حكم مسبق قفك إن أكهي ستبقى already أركتي أكهي ستقعد كاتيجوري بقى جلس أما واحد جلسي قفص كأد جلسي imagination كأكهي ستو أما صور كأكهي ستو ضد كاسي قاب كأود رقمان أيا قفك ما أركتي يهدو تأت كل رقميسا أو أتكو حكومس وقارن يدعى على هرنتاس أنت بدن مركز اللي يسكون معاني هاي اللي يسكون عصبي هاي الجديد اللي يسكون هاي ما دعوا وحيد على مركو وحال دولي بقوليها هدي أي هي كسو حرام صدق السنة أقصى الرئيس هذا كسو حرام ولي بوح أد لوسيت الماما سنة كأهرية هذا كسو حرام وحال يده هذا ويجاري كران صدق سنة هدي جاران وحال ده 5 سنة ويجاري كران 5 سنة هدي جاران وحال يده هذا 8 سنة ويجاري كران لكن محا كجرة إنتاس وحا كجرة دي up and down كعاكف اسمها وميل اسكو برانجي مركا هدي أد مركا قفك على حكمته محاد كو حكوميسا وحاد كو حكوميسا سي آنان عدالة كجرين احترام كجرين مركا أرنتاس هيبو أد بيقولي بلانتا أرنتاس waxay salka ku haysaa qofku wuxuu aaminsan yahay
in maaragtay qofkan uu khaldan yahay marka siduu u fikirayuu rabaa inuu ka toosiyo sida waxyaalaha uu aaminsan yahay buu rabaa inuu toosiyo attitudekiisa iyo dabacyadiisa ayuu rabaa uu dhibsado uu rabaa inuu toosiyo marka saxdii isaga isa siiyey khaladkiina qofkii kale uu siiyey isma odhan bal qofkan even haddii aad dhibsatid isweydii qofkan muxuu sidan ugu fikiraa muxuu sidan ugu hadlaa muxuu aragtidiisa waaba qof kaa duwan baaba lagu yidhiba jir ahaan iyo maskax ahaan iyo fikir ahaan iyo wuuba kaa duwan yahay marka habay isku dayin qofkan inaad adiga imagekaaga aad ka dhigtid ya waxa weeyaan qofka inaad qaadid ood bedishid lama rabo taas waxaa lagu xantaa dumarka tii hore waxaan dhahaynay raggaa lagu xantaa tan dumarkaa lagu xantaa dumarku waxay rabaan in ay ninka ay yidhaahdaan maaragtay waxan ma fahmayo uu gacan culus yahay lacagta kuma fiicna shaqada maaragtay inay toosiso ayay rabtaa welibana gabdhaha strong character kale amba maaragtay reerahooga mas-uuliyad culus hore soo qaaday waxay isku dayaan in ay ka dhigto dadkii ay maamuleysay amba dadkii ay mas-uulka ka ahayd inay ninkeygana ay ku darto xisaab listiga ay ku darto inay ula dhaqantay yacni sidii xaafadii ama gurigii ama familigii ay ka soo baxay marka waxaa la yidhi disrespectful judgmentka qofku markuu samaynayo may waad khaldan tahay maya sidaas maa isla markiiba qofkii maad dhegaysanay waad khaldan tahay maya waa khalad waxan inaad tidhaahdid maa inaabadii dhegaysan baaba ka muuqata sidaad ula soo booday jawaabta marka wiil aan waxaan aqaanay soomaaliya khayr allaha siiyo oo maalin wuxuu igu yidhi xaaskaygu iyadu ma awoodo nacam ma karayso inay iscaatayso laakiin anaa ilaaliya inay caato ahaato anigaa maaragtay ka dhigay inay caato noqoto gabadhii waa caatooday moogta laakiin anigaa iskale nacam ma fahantay waxaan anaa iskale creditka anaa iskale ayuu leeyahay ma awoodo iyadu inay iscaatayso marka qofkaasi heer ku gaadhsiiyey gabadhaas ka war wuu baabi'iyey sooma qofkiisii wuu baabi'iyeyba ismaba oge uu toogtay marka waxa weeyaan in aad ma waxaad rabtaa baa lagu leeyahay inaad raaxo kula noolaatid qofkan iyo nolol wanaagsan mise waxaad rabtaa ninkii saxsanaa inaad ahaatid gabadhii saxsanayd inaad ahaatid the right man amba the right woman inaad ahaatid baa rabtaa mise do you want to be happy inaad qofka nolol raaxo leh oo wanaagsan kula noolaataa rabtaa khaladkiisu wuu kaa qoslinayaa waad ka yaryaabaysaa laakiin waxaad ogtahay inaad kala duwan tihiin inaad maaragta isa saxaysiin ayaad garanaysaa marka waxa weeyaan even khaladku waa wax fiican khaladku xataa ma xuma waayo dadkiibaa isbaranaya ma garan marka selfish damadku taasoo khaladka waa wax fiican taasaan ka daba tegayaa macnaheedu ujeedadu waxa weeyaan hadduuna qofku qalad ku dhicin dabcan qalad loo bareeraya ma jiro qalad inta loo bareero wuu fiican yahay lagu dhahayo ma jirto haddaba ogaada hadii sheegayn laakiin nolol baad ku dhex jirtaa nolosha aad ku dhex jirto waa lagama maarmaan inuu qalad kaa dhaco laakiin waxaa meesha ku jirta waxa weeyaan qaladkaa kaa dhacay sideed cashar ugala soo bixi maalin maalmaha ka mida muqdisho markaan maraynay 3 sano ka hor waxaan u malaynayaa 2016kii markay ahayd waxaa jirtay qiso ama story aan tv kaga sheekeeyo dadka ay weydiiyeen storyga waxaa la yidhaahdaa storygii sabaayadda waan xasuustaa baan rajaynaya arrinta sabaayadda maalin kale aan si fiican idinka sheegayn doonaa dadkiina hadda maaragtay cusubanba hadda maqlaya biidni illahi alkariim waqti badan kolley hadda ma jiro aan kaga sheekeeyo si details laakiin waxaan u soo qaatay waxa weeyaan khalad baa kaa dhacaya khaladkaa kaa dhacaya waxaad u baahan tahay in aad reflection ku samayso inaad isdul taagto khaladkii oo aad isweydiiso adiga iyo naftaada inaad isla sheekayso khaladkan kaa dhacay horta ma qirsan tahay inuu khalad kaa dhacay marka waa arrimo u baahan in training iyo casharo maaragtay lagu qaato waan ku soconaya waxaan kaloo idin ogeysiinaya insha allahu tacaala inaan idiin soo wadno hibo haye casharadii casharo ayaan nii soo wadnaa oo ilaahay idankiis dhalinyarta seasonkii guurka maadaama la galay in 2 qof oo isguursanaysa dhalinyarta maaragtay guur hadda ku jira oo faamiyadoodii maaragtay wada hadleen oo wiilkii iyo gabadhii laysku ogyahay amba laysa siiyey oo marxaladii guurkii la diyaarinayo haddii aad taqaanaan oo nala soo xiriirsiiya leanna waxaan u diyaarinay package ah in guurkii labadii qofba la fahansiiyo 10 yaroo kooban oo intensive ah labadoodaba la siiyo iyo mid kale oo iyagii iyo faamiligoogii laysla siinayo marka labada dhinacba labadii faamiliba mid laysla siinayo bayna ilahi alkariim khayr allah ku siiyo waa ku soconaya qodobka saddexaad waxa weeyaan hibo waa qodob aad iyo aad muhiim u ah qoyslayda
iyo reerlaydu ay u baahan yihiin in sheeko mahaya waxaa u baahannahay idinkuna u baahan tihiin annaguna aan ku barannay casharadan iyo noloshan aan ku jirno waxaa weeye sideed u xakamayn kartaa xanaaqaaga iyo naftaada aniga iigumaad iimaad guursanin kuumaan guursanin in la isku qayliyo in la isdagaalo in maaragtay aad yacna xanaaqaagu maaragtay madaxayga qaado oo mar walba xanaaqidba ay noqonayso disaster noloshii ay noqonayso marka waa maxay waxaa la yidhaahdaa outbursting anger waxay ku badan tahay baa la yidhahdaa arrintaasi gabdhaha siday ugu badan tahay gabdhuhu waxbay ururiyaan u fiirsayahiba waxbay ururiyaan markaan leeyahay way isceliyaan yacna qaarkood ugu badan tahay qaarkood way isceliyaan waxay ceshadaan in ay maaragtay waxay is yiraahdaan may maanta ha sheegin may berri ha sheegin may sanad ha sheegin okay raggana waxaa la yidhahdaa canaantaa ku badan iyado way canaan badan yihiin oo markay waadii arkay sida lagu soo koray iyo meesha lagu soo korana dabcan way ku xiran tahay ragoo dhanna ma odhanayo laakiin cadhada qaraxaa la sheegaya cadhadani waa cadho qarax ah oo ay keeni karta in lagu kala guuro qofku qarxayaba dee oo hadduu doono nin baa wuxuu yidhi anigu haddaan xanaaqo waxaa meeshay ag yaalo dhan waa jejebiyaan subxaan allah dhibaato marka cadhada waxaa la yidhaahdaa hadda 2 shay baan soo sheegnay waa tii saddexaad way isbuuxinayaan arrimahani qofku marka ugu horeysa wuxuu kugu dayayaa in uu maad aragtay waxa uu isagu rabo uu ku marsiiyo markay u mari weydo wuxuu isku dayayaa inuu ku xukumo uu ku yiraahdo waad khaldan tahay reerkeenaad burburinaysaa maxay baad samaynaysaa in mas'uul ma tihid in maad aragtay in sidan baa sax ah markuu taa ay u socon weydo cadhadiibu hadara la soo baxaya waa cajiib ma ogtahay marka cadhadiisii ayuu ku tusayaa qofkii dadka ilmaha yaryar baa sameeya xataa ubadka yaryar dhulka isla dhacaan way cadhoodaan way qayliyaan waxay rabaan in la yidhaahdo bas inaga daaya bas marka dadka waaweynna way sameeyaan waa ilmaha yaruunoo weynaaday haddii uu qofku dabiciisii iyo dhaqankiisa uuna jafin marka inaga daaya uu cadhooday iyo may hala hadlin iyo hadda maaragta way cadhaysan tahay iyo waxaas marka gabadh baa maanta ay qoyin waxay iga sheekeynaysay in ay markay cadhooto ay xadka ka baxdo waxayna u cadhoon jirtay qofku hadduunan isku fiirsan uunan maaragtay isagu dib muraayad intuu qaato uuna isfiirin weligii muu arki karo khaladaadkiisa marka alxamdulilah khaladkayga way fahamtay waxay tiri markaan ninkayga iyo ilmahayga ka tago maalin fasax intaan baxo oon asxaabta iyo dadkayga aan u tago waxaan soo noqdaabay tiri aqalkiiyo waashay ilmihiiyo laysla waashay odaygiiyo hadduu doono ilmaha cunto siin aqalkiiyo kabta cararaysiyo markaasaan cadho qarxaabay tiri yaa siduu u garan waayey waxa maalin walba uu arkayay sidaan aqalkan uga shaqaynaya hawshaan qaban siduu u garan waayey ayaan odhan jiray bay tiri marka gabadhii waxay tiri markaan arkay inuu waxba qofkan iska bedelayn uu mar walba ilay maadaa ii sheegay waxaan qaba maadi tir kan kale samee maadi tir uu leeyahay ayaan waxaan isiri maalin warqad ba lagu qoro warqad iyo qalin lagu qoro intaanad ka tagin wixii loo baahan yahay oo dhan bal arag inay isbedel yimaado waxaan soo noqday tiri aniga oo aqalkii oo dhalaalay hawshii oo la kala qabtay wax walba warqadii oo xabad u tiggaray xabad u sameeyay ma garatay marka waan yaabay tiri markaasaan garawsaday tiri inaan anigu khalad ka lahaa on qofkan ku odhan waxa iyo waxaasa loo aan samaynaa aqalka saasaan uga shaqaynaa waqtigaas ilmahaasi waxaa samey waxay u baahnayd oo dhan inaan u dhowtalo way kala xisaabtamaysaa waxay kala xisaabtamaysaa inay maad aragtay biidnillaahi alkariim ay hore ugu sii sheegto marka qofku cadhadiisa hadduuna xakamayn karin haddii uu maad aragtay uu isleeyahay cadhadanaad wax ku helaysaa amba ku marso hadduu isleeyahay waxa weeyaan dhibaato marka cadhada aan xadka lahayn ayaa especially markuu qofku aaminsan yahay dagaal iyo xoog baad wax ku qaadi kartaa iyo qayli iyo cadho oo marka inaad masalkaaga inaad tusto qofka iska dhaadhici inaad qayli iyo dagaal aad wax ku qaadi karto marka waa arrin u baahan runtii waa idinla wadaagaynaa hadda sidee looga bixi karaa waa arrin aan u baahannahay koorsada inaad loo yimaado waa la isbarayaa dabcan waa training wax walbana tababar baa lagu sameeya meeshii aad ku tababaran lahaydna haddaad hadda ku jirto waad haysataa haddaanad ku jirinna waxaad u baahan tahay sidii tiyooriyadii eeg
inaad sii cabto oo aad sii qaadato waa markaad hadda guri dhasaysa oo aad dhalinyaro tahay ama dee aad qof iska maaragtay muddo karoo meel dhexaad aad iska tahay laakiin aana guursanin wey waxaan sidoo kale ku adkaynaya sidoo kale waxaan aad ugu adkaynaya oon ku celinaya mar kale oo mar saddexaad ku celinaya dadka guursaday ee guurka burbura walaalayaalow billaahi calaykum guurka ma aha waxa burburay guurka ma aha waxa keligaa maaragtay kaa xumaaday waxaa weeye adigay wax kaa xumaadeen adigu guri kaa burburay adigaad ninkaagii kala tagteen adigaa xaaskaagii aad kala cararteen adigaa lagu rabaa adaa la rabaa marka inaad wax iska bedesho oo aad halkan wax ka bedesho oo aad gacanta wax ka bedesho oo aad hadalka wax ka bedesho oo aad aragtida wax ka bedesho billaahi calaykum ha iska dhiginina maalin dhaweyd baan waxaa dhalinyaraan meel sheekaysanayna wuxuu yidhi gabadhi waan isfahmi weyno waan iska baxay marka okay waan isaga tego waan furay okay maxaad samaysay kabacdi dee reer kalaan guursaday marka wiil baa marka aniga iisoo warinaya runtii dabcan qofba kuma odhanaya dee life sidan oo kale gabadhi waan isfahmi in laga sheekeeyo waa caadi laakiin qofku in uu dhibaatada haysto uu sheego uu garowsado way ka culus tahay marka waxaan dhihi lahaa wiilkaasi waxaa laga soo wariyey in uu yidhi okay waan isfahmayno way madax adag tahay waa sidani waa disrespectful judgmentkii qayb bay ka tahay iyada unbuu u arkayaa inay qaldan tahay gabdhuhuna way jiraan gabadhuna markay sidaas tahay waxay u arkaysaa ninku inuu qaldan yahay iyadu iskuma muuqato waxaan idhahay hameen sii horeysana waan sheegnay adigu gurigani in uu burburo ama qoysku ama guurkaasi uu xumaado uu kaa jabo inteedaad u ku leedahay wiilkaasi wuxuu ihi su-aashaas lasmaba weydiinba haba yaraatay okay gabadhi waa la furay wiilkiina gabadhi maaragtay way kala tegeen soo maha qofba qofka kale markuu ka tegay qof kaluu raadsanaya iska jir qof kale markuu raadsado miyuu isbedelay isagu mise wuxuu bedelay yani qofkii la noolaa unbuu bedelay qofkii unbuu bedelay dabciisi uu wataa uu la guuray un dabcin buu la guuray reer kaloo cusub unbuu la aaday ha dee waad burburin kaa kalena in axmedow waxa weeyaan maad aragtay haddii qodobka kale aan gudubno sax daacadnimo maa la dhihi karaa ha maxaa hayday daacad xumo in daacad la-aan marka in wax la kala qarsado نعم in wax la kala qarsado ama khiyaano iska dhig amba khiyaanada amba wax qarsiga ayaa waxay keenaysaa inuu shaki dasho shakigaasina inuu kalsoonida dilo runtii aad bayna u badan tahay arrinkan aad buu u badan yahay in waxa la moodo qof kasta markuu wuxuu la soo baday ma loo baahan wax kasta inaan ninkayga u sheego ma loo baahan gabadheeda inaan wax kasta u sheego lagama hadlayo inaad wax u sheegtid lagama hadlayo noloshaada wixii quseeya ee reerkana saameyn ku leh inaad u sheegtid waa ku qasban tahay yaa maanta ka dhan wixii aad ku maqnayd iyo wixii aad samaynaysay iyo wixii ku hirgalay iyo wixii kaa xumaaday inaad u sheegto waad u baahan tahay ya labadan qof way isbuuxinayaan informationkaasi hadduu ka maqan yahay horta run hadii laga hadlayo ma cid baa jirta halkan ii soo fadhiiso sidii askarigii kamaradii CCTV camera ku daba fadhida oo tallaabo kastoo qaaday iyo meel kastoo martay iyo cid kastoo rag iyo dumar cid aad la hadashay ii sheeg cid ku dhahaysa ma jirto laakiin waxaa jirta arrintaani soomaali keliya ma haysato dadka oo dhan bay haysataa kuwa shaqada isla joogay haysataa kuwa maaragtay macallin iyo ardayga isku ay haysataa kuwa isqabaana ugu sii daran ha dishonesty daacad xumo waxaa weeye in aanad run qofka u sheegin oo aad run ku noolaanin oo aad qofka aad la nooshahay aad la wadaagin xaqiiqadaada aad la wadaagin aad wax qariso maalin hore waxaan soo qorayay iska jiryaa maalin hore waxaan soo qoray hadal ah wax berri la arki doono ha qarinin maanta ha qarinin wax berri la arki doono waaba la arki de hadde maxaad u qarini marka waaba soo bixiba soo maha marka meelo badan bay dadka qaarkood ay la aadaan weliba ragga aad bay u dhibtaa kelmadaasi laakiin qola kastaba meesheeda ayay leedahay ee wax ku qarisaa ogaada marka waxaa la yidhi axmedow qofku haddii uu wax qariyo marka dambe been unbuu iska gali moogta inaan sideed wax ku qarin de haddii aanad in yaroo been aad ku darin ambaa ku yaraata ambaa ku badnaate been baa imaanaysa meesha moogta marka waxaa la yidhi qofku maxaa keena inuu qofku daacad u noqon waayo amba open u noqon waayo amba uu wax qarqarsado uu wax kala qarqariyo maxaa keena ayaa la yidhi waa inaa la baaro maxaa ku kalifay qofkan inuu sidan u dhaqmo
ta ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa uu isku badbaadinayaa marka wuxuu ka cararayaa qofku inuu dhibaato galo maadaama uu dhibaato ka cararayo waxbuu qarini waxbuu dabooli waxbuu maldihi waxbuu maaragtay ka boodi waxbuu isla waxaasoo dhan marka in secret la kala yeesho iyo in wax la qariyo waxaa qofka ku kalifaa la yidhi inuu protection ka raadiyo inuu maaragtay naftiisa ku badbaadiyo nooca labaad waxay noqonaysaa inuu qofku qof khatar iska dhigo oo wuxuunan hayn iska dhigo uu markaa wixii ka khaldamay iyo wixii uu ku jabay iyo wuxuu maanta rafaad soo maray oo dhan uu qariyo oo geesiga oo kaalay ninka fariidka iyo gabadha fariidda ay wada noqdaan dadkii marka inuu qofkii agtiisa khatar iska dhigo oo qof kaale araga iska dhigo ayaa keensanaysa inuu maaragtay wax qariyo amba maaragtay uu qofka daacadu noqon waayo waxaa kaloo oo maaragtay ay keensata inayba dhaqan ka tahayba isagu waxaan uba aaba yeelin waxaan adiga kula weynba inuuba muhiima ma qasaba inaan wax kuu sheego inuu dabac caadi ay ka noqotay ayaa dhici karta marka labadan qof markay isguursadeen ayaa wax qarsi iyo maaragtay waxaasoo dhan maalintaas ay dhammaatay ya lifekaaga haddee toole iyo lifeka xaaskaagu hal ayay isla noqdeen walaalayaal ya extreme haba la gaadhay oo haba nidhaano hal qof baad isku noqday waana sida saxda marka waxaa la rabaa wax kasta oo noloshaada quseeya xoolahaaga plaankaaga hamigaaga meeshaad u socotid waxaad rabtid inaad samaysid ilmaha waxaad hawl aad u haysid sidaad ugu fikiraysid wax kasta inay miiska saarnaadaan wax aad iskaga dulfulinaysid un dadkana ma jirto waxaanad u sheegin un anaa aabbo oo mas-uul oo dantoodaan ka fikiraya waa tii hore ee soo dhaafnay ma garatay marka waxa weeyaan aniga unbaa saxsan ayay noqonaysaa walaalayaal taasna halkaas khayr allah ku siiyo asbaabo badan ayaa jira oo runtii keena in ay dadku dishonestnimo ama daacad xumo in ay ku wada dhaqmaan qayb waxaa ka mid a arrimaha aad tilmaantay hiba cumar waxaana la dhahaa oo ugu weyn maxaa keenaya qofkani in uu maxaan ku idhahdayey yani is-ilaalinayo ama waxaa jirta cabsi waana kalsoonin xumo la socda cabsida jirta ee uu qofkani ka baqayo hadda walaal baa wuxuu soo qorayey gabadh iyo maaragtay wiil waxay yihiin wuxuu soo qorayey daacadnimadu haddii ay keento markaa kala fogaasho ka waran discord isku xidhnaan la-aan hadday keento sida loo arkay ay ku xiran tahay sababta maxaa ka dhigaya in haddii daacad la isku noqdo oo run la isku sheego oo kalsooni halkay ka dhalan lahayd in la kala fogaado maxaa keenaya waxaa keenaya fadhi baa ka horreeyey maanta haddaad bilowdid inaad daacad noqotid oo maaragtay wax soo qarqarin jirtay waad baqaysaa waad ka cabsanaysaa daacadnimadii waad ka baqaysaa marka laakiin tartiibi qofka la fariiso waqti fiican quality time siiya u sheeg maanta laga bilaabaa inaan maaragtay dhaqan cusub aan abuurno in aan wax badan isku sheegno wixii tagay iska badaa laakiin ka bilow maalintaa tartiib isku furfur tartiib marka inay go-aan niga noqoto markaad isku sheegtaan de qofku usbuuc walba wax yar buu ka hirgelinaya dhaqankii waxaa suuragal ah runtii disclaimer waa inaan sameeyaa ku qasbanahay oo aan soomaalida waxay tiraahdaa ama afee fura yeelo ama adkaysi dambe annagu ma odhanayno oo malihin wax aydan weligiin kusoo dhaqmin maanta bilaaba waxaad u baahan tihiin dadka wada jooga muddada sida iyada oo kale kuwa naga badan kuwa naga yar intaba waxaa loo baahan yahay waxa aad tallaabada aad samaynayso waxa aad qabanayso ma aha axmed jowhar iyo hiba cumar waxa ay kuu sheegaan in ay noloshaada saamayso dhinaca wanaagsan baan rabnaa annagu inay u saamayso oo positiveka ah ma rabna laakiin adoo weligaa waxaan soo sameeyey haddaad maanta bilowdo ay balaayo kuu keento sheekh iyo xaaskiisii waxay sheegayeen baan sameeyeyo dee dhib baa ka dhacda in la yidhaahdo annagu ma rabno waxaan u baahannahay adaa mas-uulka ah waxaad samaynaysa waa in aad xaaladda gurigaaga aad taqaano xaaskaaga waa inaad taqaano ninkaaga waa inaad taqaano waa inaad odorosi karto okay haddaanaad wax ku habi ku ahayn ku faraxsanayn sideen u bedelaa oo tartiib oo wakti aad u siiso oo maaragtay process aad u geliso adaa lagaa rabaa istaraatiijiyada in aad qorato aad u dabiqi lahayd laakiin caawa hal xadiis dhegayso ama hal wacdi dhegayso ama hal tala dhegayso isla caawadiiba dabaq oo maaragtay hala isla qiiqo
sax maaha arrintaas marka waxaan kusoo koobaya insha allahu tacaala 6 qodob baan idiin haynay kama gaarayno afartaasaan sheegnay khayr allah idin siiyo aad baan idiin jecellahay aad baad u mahadsantihiin waan soo afmeeraynaa afartii qodob hiib haddaad nooga sidaas horta ilaahay waxaan ka baryaynaa inay reeruhu noo waaraan in dad badan oo nimcad iyo raaxo iyo barwaaqo ku jira ilaahay u ziyaadiyo inta dhibana ilaahay inuu ka saaro biidnillahi alkariim naftanna haddaanaad adigu bedelin waxa weeyaan wax kaloo ku bedelaya ma jirto waxyiga ilaahay soo dejiye kuma bedelayo cid ku bedeli karta ma jirto haddii adigu aanad qaraar qaadan oo is odhan reerkaaga intan baa ka xun intanna way u saxsan tahay haddaanad is odhan maaragtay nolol kale oo tan ka duwan maba geli kartidba marka waxa weeyaan walaalayaal in wixii lagu fiican yahay ha la fiiriyo anu waxaan jecelahayba in laga bilaabo waxyaalaha lagu fiican yahay labada qof hadday shay ku fiican yihiin shaygaa ha fadhiistan ha yidhaahdaan maalin walba qaybtaa baan ka samaynaa siduu shayga noogu fiicnaaday inaan wixii daryeel iyo ka warhayn iyo dabajoog unba ku fiicnaadaa moogta yaa koobka biyahan ku cabayno haddaana la dhaqin maalin walba ma iska ahaanayo nadiif ma iska ahaanayo marka naftuna sidaas leeg dareenkii baa jira oo qofkiina aada loo tixgeliye ay tahay marka walaalayaal waxaan kusoo koobaynaa waxyaalaha burburiya amba keensada inay labada qof isku dhacaan oy moodayaan welibana sax yaa ayagoo ku hoos gabanaya amba diin amba ku hoos gabanaya maaragtay danta faamiligeygan ka fikiraya ku hoos gabanaya ayay waxaan samayn karaan iyagooba xumaan ayan ka ahayn marka waxa weeyaan dalbashada aad qofka wax ka dalbanaysid ee laakiin adigu naftaada aad ka fikiraysid naftaada inuu guurkani adiga uun kuu khidmeeyo ood adigu faa'iido ka heshid haddaad fikirkaagu ay tahay waad khaldan tahay haddii aad ka fikiraysid adiguna maaragtay wanaag hel qofka kula noolna wanaag ha helo oo dhex iskugu yimaada haddaad ka fikiraysidna qaabkaad wax u weydiinaysa ayaa ka duwanaanaysa walaalayaal taasi waxa weeyaan in baahida sida laysku weydiisanayo wax taas marka laga soo gudbo waxaa imaanaya sida maaragtay ay in laysku xukumayo amba qaab uu qofka kale u arko sida uu fikirayo sida uu fikirayo way khaldan tahay sida maaragtay dabacyadaadu way khaldan waxaan way khaldan intaad dahaysid waxaan baa kuu fiican waxaan kale waad ku fiicantahay waxaan kale waad ku fiicantahay xabadana way kaa khaldan tahay ayaa ka wanaagsan marka waxaasoo dhan iyo ka badan walaalayaal waad garanaysiin waa xasuus waxani inaan is xasuusino un baan rabnaa cashar iyo lecture iyo waxaan nii jeedinayna male laakiin naftan in lala jihaado ayay u baahan tahay oonan laga fadhiisan oonan laga daalin ta saddexaad waxa weeyaan cadhada xadka baxa ah in layska ilaaliyo cadhadaasi waxay keentaa in uu qofku wax badan isma oge uu qofka ka baabiyo qalbadiisa dilo berritoo la raalli ahow iyo waan ku xaali iyo waxba wax badan kuuma tarayso marba dhaawacii waad geysatay marka cadhadaadu adigu la tacaal adigu isla fadhiiso adigu maaragtay isdawee waayo cadhada daawe u baahan tahay wax fudud ma waa xanuun waxani intaanad qofka kale waxba gaadhsiin adaa isgaadhsiiyey waxa weeyaan intay shucuurtaadu iyo dareenadaadu iyo dhiiggaagu iyo maskaxdaadu ay kacayaan ayaa ka badan intaad qofka kale waxba aanad odhan marka cadhada xadka baxana iska ilaali walaalayaal oo maaragtay faamiligaagana ka dhowr wixii adigu aad naftaada u necibtahay reerkaaga hala jeclaan ta ugu dambaysa waxa weyaan ikhlaaska iyo daacad in laysku ahaado daacad xumada iyo wax la kala qarinayo iyo dabacyadaas wax la qarinayo secretka ha layska ilaaliyo gabadhaadu iyo ninkaagu inay danahaaga iyo fikirkaaga iyo hamigaaga inay banaanka kasoo maqasho intaasaa ceebka ugu filan qofka kula nool meesha aada u dhoofaysid amba waxaad qabsanaysid amba businessyadaad ku jirtid inuu banaanka kasoo maqlo intaasaa ceebka ugu filan qofka aad ka bilaabaysid eed wax walba la wadaagaysid eed wax walba u sheegaysid waa xaaskaaga iyo ninkaaga biidnillahi alkariim laba qodob baa noo sii dhiman biidnillahi alkariim insha allah waqti kale ayaan sameynaa khayr allah ku siiyo si fiican baad noogu soo maaragtay afmeertay oo noogu soo koobtay waxaan ku darayaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan haddee lamaano keliya un ma jiraan waxaa jira maaragtay xaasas qoysas ay jiraan maxaan ku dhahday niman xaasas leh sidee loola dhaqmaya waa laftigeedu ama labaha ku joogto ama saddexa joogaan ama afara joogaan waxaa loo baahan yahay xaas kaste in daacad isku noqdo gabadh kasta inay ninka qaba ay daacad u noqoto nin kastana gabadha uu qabo ama min weyn ha noqoto ama miyaro ha noqoto in daacad loo noqdo oo qof kastaba xaqiisa la siiyo meeshan waa xuquuq baa la isku leeyahay in qof kastaba xaqiisa la siiyo khayr allah idin siiyo aad baad u mahadsantihiin group baan furaynaa hadduu alla yidhaahdo lifestylekii qaybtii dhaqaalaha casharadan isfahanka lamaanaha aan maaragtay rabno in ay dadku qaataan biidni illahi alkariim waan idiin soo sheegi doonaa waxaan idiin rajaynayaa nolol macaan oo raaxa leh isfahan
ilaa insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala aan la kulanno oo aan jannadiisa ilaahay uu nagu abaaliyo. allah idin barakeeyo, ilaahayna xifdiyo. inta dhallinyaradana ilaahay ka saaro dhallinyarnimada iyo maaragtay kelinimada, oo qoysay ku raaxaystaan oo macaan allah siiyo. inta qoysaska haysata allah u barakeeyo. inta shaydaanku uu ku dhex jirana ilaahay subxaana watacaala shaydaanka ka dhex saaro, oo ilaahay ha isfahansiiyo, qalbigoodana burcad ha u mariyo. annagana noo soo duceeya. inta ilmaha raadinaysana ilaahay waxaan ka baryayaa ilmo barakaysan oo gurigooda qurxiyo oo nuur ka dhiga ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo, oo ilaahay ha u sikhiro. jazaakum allahu khayran. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa allah astaqfiruka wanatuubu ilayk. aad baad u mahadsantihiin. waa inoo jumcaha dambe biidni illahi alkariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.